horta kulligeen waxaan aanay ardaytiin anagana ardayaan ahnay social media haddii sida wanaaga waa koox dhalinyaro ah oo kelmado wacyigelina u jeedinaya arday dhex fadhida fasalladooda waxay xoogga saarayaan inta badan wacyigelinta iyo waxbarashada dadka waxbarashada faa'iidana uu noo leeyahay faa'iido darrana uu noo leeyahay faa'iido darrada noo leeyahay waxay tahay markii la joogo dhanka imtixaanka horta ardayaan ahnay imtixaan markii la diyaarinayo kale ardayga imtixaanka markuu diyaarinayo waxa laga rabaa inuu buuggiisa waqti ku bixiyo laakiin anaga maxaan ahnay macna imtixaanka kale marka diyaarinayno horta imtixaan marka diyaarinayno waxaan ahnay ardayda macna dhamaatay ama jaamacada dhigano ama iskuul dhigano imtixaanka macna ka hor ma diyaarino laakiin waxa diyaarinaa biriyo kale marka imtixaan galayna caawa diyaarinayna dibkan haysta taas waay hadana caawa marka diyaarsid tusaalahaan 10 daqiiqo camal buugga fiirisay kadib taleefanka soo baxsatay Facebook gashay Facebook wuxuu la soo dhigay fiirsay hadana waxa yimid wax la yiraahdo TikTok ardayda waxay uga digayaan inay si qaldan u isticmaalaan baraha bulshada waliba xilliyada ay xiisaduhu u socdaan si aysan uga habaabin dowga toosan ee tarbiyadda iyo tacliinta halkani waa iskuul gelinka dambe ee maalintii wax lagu baro caruur danyar ah waxaana si isku tashi ah ku yagleelay urur ay ku midaysan yihiin isla dhalintan wacyigelintu iskuulaadka waaweyn ee degmada gobolka Banaadir ku yaalo booqda soo qabab kala duwan sameeyna maanta hadda ugu dambeysay waxaan ka hadlaynay oo wacyigelin iskuulaadka qaar kamid ah ka soo sameeynay faa'iidada dhibka uu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed baraha bulshada sidoo inuu waqti ka dhumiyo caafimaad darro inuu ugu imaado inkastoo dhinaca kale markii laga fiirin faa'iidana ay jirto laakiin inta badan caqabadaha lagala kulmo ayaan ka hadalnaynay sida caafimaad darro ugu yimaado inuu waqtiga kaga lumo mararka qaar xitaa dhinaca dhaqaalaha naftirkeeda inuu dhib u geysto marka wacyigelinadu wax wali markii aan waxaan isniraado ama bulshada dhib ku keeni kartaa ayaa waxaan ka sameeynaa wacyigelin annagoo hadda soo qaadanayna mowduucan isleenahay mowduucaas dadka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxba u qabanaya dhinaca waxbarashada oo kale iskuulkan hadda aan ku sugannahay joognaa xiisado kala duwan laga dhigaa 7 saac ay soo bilowdaan 5 maalin oo shaqeeya 7 saac ilaa 12 saac bar uu ku egyahay arday heerarkooda kala duwan ayaa wax lagu baraa iyadoo si tabarucaad markaas ardaydan iska bixin karin waxbarashada ee aan awoodin waalidkood inuu waxbarashada ka bixiyo aan wax ku barno inay wax bartaan caruurtan ma ahayn wax qorshahaba ugu jiray waalidiinta dhalay waayo alyoomkooda ayaaba lagu helaa si naadir ah ardayda meeshaan ay dhigtaan awoodan wax oo geeyno hadda iskool qarash oo dhiibnano awood ma u hayno bada alxamdulillah waxbarashadana ilaahay noo keenay dhalinyaradan hadafkoodu waxa uu yahay in la helo jiil wax bartay mustaqbalka dhow tarbiyadooduna ay hagaagsan tahay si ay u soo baxaan dad dhisan oo isbedel horseedi kara maxamuud Soofaysane telefishinka Universal Muqdisho